عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. علي فولدر ميديا علومta diiniga iyo culimo aad u wanaagsan gudbintoodu wacan tahay ayaa kuugu diyaare ku xirnow casharada ay bixiyaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثالث والثلاثون حديث كصدن إسدحات هذا محله العفو. عفنت يكسب سنيه العفو عفسك هذا كان محله عفسك بوسكي سوا. ودرسي لحية طبنات كتاب كين تحفة المشتاق عن سوقارنا حديثك صدن يو سدحات. حديث كان صدن سدحات وحوك هرليا إن ليس عفيه دتك مسلمين تا إن إسعفيان. عن عبد الله بن عمرو وحال لقوري ابن العاص رضي الله عنه أنه عبد الله بن عمرو بن عاص سمع النبي إنه مقال صلى الله عليه وسلم على منبره منبر كيس دشي سحال وهذا رسولك أصو منبر كسارا يقول حالو لي رسولك أيو مقلي ارحموا ترحموا ارحموا نحريستا ترحموا ليدين نحريستي مركز نحريستان ليدين نحريسنا يا ارحموا نحريستا ترحموا أيدين كانوا ليدين نحريسنا يا واغفروا دافا أو اسعفية دتك دافا يغفر الله لكم إلهي با إذين دافا يا إذين كان ويل هلاك أما عذاب ترن لأقماع القول هذا الككوة عن ويلين أيو أسقناضي. ويل هلاك للمصرين كوة جوكتي أيو أسقناضي الذين مصرين تاسو يصرون دائما يوجوكتين على ما فعلوا وحا أي سمايين أو دنبية والحال هم أيو يعلمون أي أكسويهين. حديث كامرك وحا ورنا يسيد كقرنيس الصحابي عبد الله بن عمرو بن عاص. عبد الله بن عمرو بن عاص وحوليه النبي أيام مغلق صوت لها ياه يسون حريستا والذين حريسنا ياه وإله بأيدين حريسنا عمرك يسون حريستان واغفروا يغفر الله لكم دافع أو إسعافية إله بأيدين عفين وإذن دافع مركب محل شاهد في حديث كالك صار الله سوقعته عفو قاس أيها اللي قربه انت أصنبه وحكودر مركب ويل لأقماع القول هلاك يشدد دران iyo dhibaato iyo cadaab waxa iska leh kuwa aan hadalka weeleyn oo aan hadalka dhig jalaq u siinin. hadalkaas waxa laga wadaa hadalka shaarica amarka ilaahay iyo rasuulkiisa kuwa aan dhageysanin ee markii la wacdiyo wax loo sheego dhagaha markay macnaha ay maqlaan hore uga sii socdo oo ku amal falin waanada iyo wacdiga oo aadaabta islaamka aan qaadanin kuwaas halaag ha ku dhaca leeyri. waxa lagu shabahay aqmaacda waxa la yiraahdaa macnaha waa weelasha oo mesela shay weel oo kor ka furan hoosna ka duleelo kala markii wax lagu shubo hore ay u sii dhaafayaan kuwaas oo kale ay u egyihiin leeyro macnaha wacdigi iyo waanadii loo sheegay waa un maqlaan maahana kuma dhaqmaan hore u dhaaftaa marka kuwaas aad iyo aad ayaa loogu hanjabay. waxaa la rabaa marka qofku markii la waaniyo oo wax loo sheego xaqa inuu xaqa dhageysto oo hadana ku dhaqmo. alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. dadka wanaagsan waxa lagu amaanay in qowlka dhageystaan hadalka kadibna ay raacaan waxa wanaaga ah oo qofkaas uu kula hadlay markii la waaniyo inuu wanaagaas ay qaataan la rabaa. laakiin kuwa aan fiicnayn waa sidii gaalada laga sheego سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين أي كوير هذه النبي جودي الله صادره أو حاسكم إذا يدهن إن النوانس إن هذا النوانين تتساس هاجر مركز وشيكته إن هذا وشيكته إن هذا وشيك سقمد أيتها مركز ما هو ناقصنا مركز قفك مؤمن كا وحال ربائني وانضو صاميسو تلمامها مؤمنين إلهي القرآن كمركز كهلي وحور إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ذاتك مؤمنين تاهي وكوة هدي لوانيه وإلهي وعد جيسي وعيد كيس الله ورمون
wajilat quluubuhum qulubtooda ay cabsato markii wax loo sheego qalbigooda gilgilanayo markaas ay cabsanayaan wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zaadatuhum iimanan markii aayaadka ilaahay lagu dul akhriyane iimaan ay ka kororsan dadka mu'miniinta wa ala rabbihim yatawakkalun rabbigoodna waa tala saartaan alladina yuqiimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun hadana dadka mu'miniinta tilmaamahooda hadana waxa kamid inay salaadana ay ogaan ay dukadaan wixii ilaahay siiyay ay wax ka bixiyaan tilmaamahaas marka ilaa 5 sifo ama 5 tilmaamood oo qofka mu'minka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku amaano oo la rabo qofka mu'minka inuu ku sifoobo waa inuu horta hadii wax loo sheego oo wacdiga iyo waciidka ilaahay looga warramo inuu qofku cabsanayo oo ay saameeyso muxaadarada ama maaragtay wacdiga loo sheegay inuu saameeyo waa midda koobaad hadii aayaadka ilaahay lagu dul akhriyo looga sheekeeyo ama lagu dul akhriyane waa inuu hadana ay iimaan ka kororsado oo aayadii loo sheego oo iimaan u ziyaadiso hadana waa rabbigiis waa inuu ku kalsoon yahay oo ilaahay tala saarta qofka mu'minka tilmaamta sida afraad waxay tahay ruuxa mu'minka looga baahan inuu noqdo ruux mu'min macnaha salaada ooga oo salaadii dukado shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo sunanteedii aadaabteedii ilaalinaya tan afraad tan shanaad waxay tahay sifada shanaad oo qofka mu'minka loo baahan inuu ku sifoobo waa inuu hadana ilaahay wuxuu u dhiib wax ka bixiyo inta markuu ilaahay istaba dhigay tilmaamahaas ayuu ilaahay wuxuu yiri ulaaika humul mu'minuuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun kareem dadkaas tilmaamahaas leh waa mu'miniinta dhabta kuwaas waa marka waylun li'aqma'il qawli nabigu wuxuu yiri marka halaag oo dhan wuxuu u sugnaaday kuwa hadalka aan weeleynayne hadalka wacdiga iyo waciidka marka loo sheego kasii socdo oo dhegtaanay ku maqlaan dhegta kale hore uga sii baxaa kuwaasoo kale aad ay maaragtay halaag iyo cadaab ay ilaahay agtiisa ku leeyihiin waylun lil musirrin alladina yusirruna ala ma fa'alu halaag wuxuu u sugnaaday waa isla ayaga baa la sii faahfaahinaa tilmaamahoodii kuwa daa'imo lil musirrin kuwa joogteeyo oo daa'ima oo dimbiyaasha iyo waxay galeen macaasida iska sii kor dul istaagayaan alladina musirrin taasoo yusirruna ku adkaysanayo oo daa'imayo ala ma fa'alu waxa ay faleen waxay xumaanahay sameeyeen iska sii dul joogayaan wal halhum ayagu yaclamuuna ay ogyihiin waxaanu inay khalad yihiin iyadoo loo sheegay oo xaqi la tusay ay ku sii madax adeegayaan markaas isaga sugan yihiin kuwaas ayaa halaago dhan iyo cadaab u sugnaaday wiri nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam xadiidkaas imaam ahmed ayaa soo saaray kitaabkiisa musnadka ah الحديث الرابع والثلاثون حديث كأفر يصدنات صدن أفراد الحديث الرابع والثلاثون حديث كصدن أفراد السطر وحكو سابسين هاي الستر معناه أسترك ستر وأسترك انقفك وحيابا خلطة هدادكو أرى تقفك مؤمنك إن أدوقاري صد وأسترتو أرنا عيبتي سفافين أريما سوكو سابسين حديثكو أحكام وحيابا فربضن حديثكو كهال للدونا لكن قيبتا صهد الشيخ وعوانك أسوقاتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس قفك فايدة عن مؤمن حقيس كربة كرب قفك كفايدة كربة صو من كرب الدنيا ذا كربوين كذا كمذا نفس الله عنه إلهي كاسنا كفايدة كربة كرب من كرب يوم القيامة ما لنت قيام كربوين كذا كمذا روحي قف مؤمنة كرب الدنيا أو لبعت الدنيا هي ستكفيده إلهي أسجن وحو كفيده كربوين فربضان وما لنت قيامه كربوين كذا كمده أيو كفيده كربو أو كفيده هو كربوين كما لنت قيامه كمده قيامه هو كربو بدن تبانا شدة بدن تا كربوين كقيامه مرك إلهي كفيده قفكي الدنيا مركو جوجو كربة أسونا كفيده قفك مؤمن كمرك سيا كربة أو كفيده كرتا كربada waxaad uga faydi kartaa inaad mesela haday u dhibaataysan yahay wax siiso hantidaada uga faydi kartaa aqoontaada uga faydi kartaa oo jahli iyo dhibaato oo ku jirayad maaragtay ka aqoontaada uga badbaadisay waxaad kurbada uga faydi kartaa wajigaaga mesela hawl baa haysata arrin baa haysata qofba wax ka rabay qofkiina marka la kulmi ma karo waa ku adagta soo la kulmo adiga marka dhexdhexaadiso shafiic u noqotayo qofkii uu ergeysay
intaasoo dhanba waxay isugu imaan kartaa kurbadii oo laga faydo biayi wajin oo adigu uga faydaba ruux mu'mina kurba iyo mushkilo haysato haddii aad ka faydo inta adduunka joogto ilaahay adigna kurbooyinka qiyaamada kurba ka mid uu ka faydaya waman yasara calaa mucsirin ruux faqiira oo waxaysan qofku u fududeeyane yasara allaahu calayhi ilaahay yaa u fududaynaya fi dunya walaakhira adduunya aakhiro ruux mucsira oo faqiir oo dhibaataysan qofku u fududeeya ilaahay baa adduunya aakhira u fududaynayo tusaale ahaan deyn buu ka qabay deyntii u cafiya marka uu yiri iska tag ama ma ahana dhibaatay xaalad adag ayadoo haysato oo deymiyay yiri iska qaada lacag waxaan qaado goorkada iska keen laftigeed waa taysiir nooc min taysiir waa fududayn ilaa wixii qofku u dhimanayo hadaa tira maanta iska qaado ee goorkada iska keen waa u fududaysay intaasoo dhan waxay soo galayaan qofku fududeeyo qof mucsira oo faqiir dhibaataysan ka fududeeyo ilaahay asigana u fududaynayo waman satara musliman ruuxi muslim astura ceebtiis baa laga wadahay satarahu allah ilaahay asna astura fi dunya wal aakhirah adduunya aakhiro qofkii mu'min ceeb uu leeyahay u qariyo u astura ilaahay baa adduunya aakhira asigana astura ceebtiisa والله إلهي في عون هلا أنت أسوأ مركب مدة الله سو قاطي موضوع حديثكو ومن ستر مسلم ستره الله أسر كاسو حديثكو كان لي قيب تاس الله سو قاطي والله إلهي في عون العبد أضونك كلمه سأيو هذا ما كان العبد أضونك أنت وياه في عون أخيه ولالك كلمه س إلهي سبحانه وتعالى أضونك سوحو كلميه أنت أضونك أصونا ولالك كلام مسلم كأو كلمينه حالا ربا مركه هدارت danahaaga ilaahay inuu ku gudo marka doonayso waxa la gudaa danaha walaalaha muslimiinta danaha walaalaha muslimiinta marka isu taagto oo aad guddo oo aad u taagantahay habeen iyo maalin ilaahay subhanahu wa ta'ala asigana danahaaga waa ku gudaya waman salaka tariiqan qofkii wada mara waman ruuxi salaka mara tariiqan wado yaltamisu asigoo ku raadinayo fihi tariiqas علما علمي أسيو كرادينيو سهل الله إلهي با وسهل له قف له منكاس به طريقة أو مر سبب كيسة طريقا وضعي إلهي وسهل إلى الجنة جنة أو طريقة معناه طريقا موصلا إلى الجنة وضع جنة جارسيسة أي إلهي وسهل قفك معناها حديث قيبت عن إلهي ونبيك أمانة عليه الصلاة والسلام طلبة العلم قدتك أهو معناه علمي raadintiisa ama cilmiga barashiisa fadliga ay leedahay ayaa lagu muujinaya marka nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam qofku wada mara asigoo wadadaas ku raadinaya cilmi oo inuu cilmi ku barto cilmigaas waxa loo jeedaa cilmiga sharciga ahayo waa diinta ilaahay inuu barto ayuu u baxayo markaas oo saasoo wada ugu socdaa qofkii wada mara marka asoo cilmi ku raadinaya إلهي أسيغنا وحو أسهليا ودرع أو مر سبب كي طريق أو جنة كو قارو أي أسهليا وما اجتمع قوم قلو ما كل من في بيت قريكو ما كل من بيت كاسو من بيوت الله إلهي قريه سكمدا يطلون حالي آخرنا ين كتاب الله إلهي كتاب كيسة وهو يتدارسونه كتاب كي اسميرين ين بينهم لحظوظا إلا هديبا أي كلمان أو بيت إلهي كسو كلمان إيو كتابك إلهي اسكو ميرينيا نزلت عليهم دشود وحا كسو دقيس السكينة حسلوني وغشيتهم وحا دبوليسو الرحمة حريس وحفتهم وحا هريرينيسو الملائكة ملائكة وذكرهم الله إلهي وحسي ددكاس في من دون لحديثو كحسا عنده إلهي أكتيس أهاري وملائكة إيا ملأ الأعلى أيوكو أكحساوه ومن روحي بطأ به منك عمله عمل كيس أو دب لغو عمل كيس ميلكو قاري واياني لم يسرع به نسب كيسو مهار ماريو وايه حديث كحوك هلا يا غايبتان دنبي إسلا علمي برشدي سفضلي سو كساب سيهاي وحوليها معناها النبي عليه الصلاة والسلام قالوا السمي مادان أو كمسو وضع أروران ميل بيد أو بيود إلهي كامده أيوة كتابك إلهي أخرنايا سميرينايا إصبرايا إلا هدي قلا سداسة لهلا وحكوسو دقي سماشاس أي جوغان نحريس رحمد يا برواقو يا دبوليسو ملائكة با هريرينيسو هالكاسي ودا صفانا يقو علمي قاسي ماشا وحلقو برنايا داناينايا إلهي با دادكاس أيغا أحوصيو إلهي أكتيسة أيو كوحسا معنا ملائكة oo ilaahay agtiisa sharaftay qiimaha kale
iyo wixii mala'ul a'la ayuu ilaahay ku aqxusaahu sheegaya markaasuu nabigu intaas wuxuu ku daray waman batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu ruuxi amalkiisa oo dib dhigo oo amalkiisa meel fiican iyo darajo fiican ku gaari waaya nasabka iyo cidda uu yahay iyo dhalashada uu leeyahay iyo inuu yahay ina sheekh hebel iyo ina fulaan iyo ina wabar hebel inuu yahay ilaahay agtiisa waxba uga gooymayso oo camalkiisa dib dhigo nasabkiisa hormari maayo oo nasabka maqaam iyo sharaf ku gaari maayo waxa la qofku marka inta adduunyada joogo waxa uu sharaf ku leeyahay waa amalka uu sameeyay inuu amalkiisa hagaagsado oo san isku halaynin cid oo ka dhashay iyo dadka uu yahay iyo waxaas waxba ilaahay agtiisa kama gooyaan xadiidkaas imaam muslim ayaa warinayo insha Allah ta'ala darsigeen intaas soo ku sameeyay hada billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة